magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee Turkiga taasi oo lagu xusayay sanad guurada 59aad ee ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ay xorriyadda la soo laabteen isla markaana ay israaceen koonfur iyo waqooyi. munaasabadda 1 Luulyo waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta kala duwan ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, wasiirro ka socday Turkiga iyo Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Turkiga, diblomaasiyiin ka socday in ka badan 50 safaaradood oo ka howlgala dalka Turkiga, taliyaha guud ee ciidamada kala duwan ee dalka Turkiga, taliyayaasha ciidamada cirka, badda, dhulka ee Turkiga, shirkadaha ganacsiga iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay. safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay madaxda iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadda. wuxuu ka warramay sooyaalkii Soomaaliya ee xornimada kadib iyo guulihii ay Soomaaliya horseedka ugu ahayd Afrika ee xasiloonida iyo horumarka. Ladies and gentlemen, I welcome you on behalf of Somali people and Somali government to this reception to celebrate with us the 59th anniversary of our independence. Danjire Jaamac Cabdullaahi Caydiid ayaa sidoo kale u mahadceliyay dowladda Turkiga iyo dalalka kale ee garab istaagay Soomaaliya xilliyadii adkaa. Special thanks to the Republic of Turkey, African Union, the USA, and the EU and Arab League, who all are engaged in the process of recovering and rebuilding the Somali state. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid oo munaasabadda hadalka jeediyay ayaa ka warbixiyay taariikhda iyo halgankii ay Soomaalidu u soo gashay gobonimada iyo qiimaha uu leeyahay toddobaadka xorriyaddu. The 1st July, it is very historic day for all of Somali people. It's a day which has a special place in our hearts. It's engraved in the collective memory of Somali people. waad ku mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan maalinta xornimada iyo midnimada Soomaaliya ee 1 Luulyo. waa maalin taariikhiya oo ku weyn qulubta Soomaalida. wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay isbeddelka iyo horumarada kala duwan ee ka jira Soomaaliya xilligan, wuxuuna xusay in xukuumadda ay hogaamiyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay ka go'an tahay soo celinta sharafta, karaamada iyo doorkii Soomaaliya ee caalamka, iyadoo sidoo kale ay socdaan barnaamij dalka iyo goobaha taariikhiga ah dib loogu dhisayo. dhinaca kale, wasiirka wasaaradda beeraha iyo deegaanka ee dalka Turkiga Dr. Bekir Bakdemirli ayaa sheegay inay farxad u tahay inuu ka soo qayb galo maalinta xorriyadda Soomaaliya, iyadoo Turkiga iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xidhiidh wanaagsan. It's a great pleasure to be here today to celebrate the National Day of our Somali brothers and sisters. On behalf of the Turkish government and Turkish people, I extend my sincere congratulations to the Somali people and the government. The relationship between Turkish and Somali people is based on their historical ties and common values. wasiirka ayaa xusay inuu si weyn u xoogaystay xiriirka labada dal kadib markii sanadii 2011 madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ra'iisul wasaare ahaa uu booqasho ku tagay dalka Soomaaliya oo ay ka jireen duruufo adag, taasi oo ku soo jeedisay indhaha caalamka. Dr. Bekir ayaa wuxuu xusay in dowladda Turkigu ay Soomaaliya ka taageerto dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada, dib u dhiska dalka iyo xarumaha dowladda, tababarada ciidamada qaybahooda kala duwan, gargaarka dadka jilicsan iyo adeegyo kale oo muhiim ah, kuwaasi oo uu sheegay inay ku baxo dhaqaale badan. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish, magaalada Ankara.